وبرنامجكي عاد ودا سوغيسين كفتك سبورتسكا برنامجكنا waxaa si talantaali ah idin kugu soo gudbinaya anigoo Cabduqaadir Boos ah iyo Lulshaadu ka bogasho wacan musiibooyin horle ayaa isbuucan mar kale ka dhacay biyaha caalamiga ee Masar markii uu soo dumay darbiga garoonka dhimashada ee Mediterranean Sea Stadium ilaa 500 oo ahaa xidiga mustaqbal wanaagsan ku lahaa dalkeena ayaana ku harqamay isreebka tartanka lagu magac daray rajaraadinta dunida iyagoona u gudbay tartanka adag ee aqro inkastoo guulo lama filaan ah la uga baryeeno kaabkan habeenkii la ciyaara ayaana waxa soo qaban qaabiyo wakiilo ka taajiray ka ganacsiga ciyaartoyda waxaana sidoo kale qarsoodi lagu martigeliyaa wadamada Liibiya Masar Yemen iyo Griga taageerayaasha tartankan ayaana bixiya tikid qaali ah iyagoona aqbalay in 500 ay ku galaan stadium qaada 150 qofood iyagoo kaliya eeganaya sidii ay ku gaari lahaayeen horyaalka aan xiisaha badan lahayn ee Talyaaniga FIFA ayaa baaritaan weyn ku sameynaysa tiro badan oo waalidiin Soomaali ah kuwaasoo qayb weyn ku leh musiibooyinka soo noqnoqda ee garoomada badweynta badi waalidiintan ayaan dhalaankooda u iibiya maaliyadaha kabaha nooca orodada iyo agabyada kale ee sportiska ka hor safarka xidigahooda aweyga uga baxayaan dalka waalidiintan aan xamili karin guuldarooyinka caruurtooda ayaana safarka ka hor u saacabato madhalaanka una sheegay in guul degdeg ah gaari doonaan si ay u nasiyaan booska xidigaha ka waaweyn ee dubdhaxaad ku aqaab ciyaareedka qoyska sidoo kale waalidiintan ayaa u yeeray tababarayaasha dugsiyada quraanka iyagoona u balan qaada lacago waali ah haddii caruurtooda boos joogto ah ka helaan horyaalada UK, Finland, Sweden, Norway iyo wadamada kale ee qaaradda Yurub walow marka xidigahooda otoreeto iska dhaliyaan eedeeda dusha looga tuurayo kooxda federaalka oo ammaan iyo aad isugu mid isla musiibadii ayaynu ku guda jirnay kabtanka dambe jadiid Xasan Sheekh ayaa mar kale u cagwareejiyay taageerayaasha careysan ee Soomaalida kuwaas oo aamin la natiijada live score uu ka qorayo garoonka badda hogaamiyaha dambe jadiid ayaana sheegay inuu dareemayo murugo weyn kadib musiibadii garoonka biyaha inkastoo kabtankaasi la hubay in mucjisadaasi ay uga darnaan lahayd 20 xildhibaan oo subaas baasta kubadaha mooshinka ee dhankiisa loo darbeeyo dhanka kale xidiga madaalaha shabaab Cali Dheer ayaa isna sheegay in qulqulka dhalinta ay sabab u tahay in daayirta boos joogta ah ka waayeen ilaa dhaqaalaha dalka sida garoonka aadan cade oo xulal reer galbeed ay ku almiteeyaan laakiin way aragan jecel ciyaarista Kenya ayaa iska iloobay in kooxdiisa mararka qaar bariga ay ka sameeyso bandhig halaag ah oo ka daran kan haatan uu la fajacsan yahay مسؤوليinta kooxda Puntland ayaa stadium qaada 250 taageere ka furay meel u dhow xeebta Garacad iyadoona geysay xidigo u badan gobolka Nugaal oo tababaro heer sare la soo siiyay garoonkan isgaarsiinta lahayn ayaana loo aasaasay martigelinta kooxda Shabaab oo ay suurtagal tahay in si kadis ah uga soo qayb galaan horyaalka heerka koobaad ee Puntland inkastoo xiriirka kubadda cagta ee Puntland aysan haynin waqtiga saxda oo ay soo gashay ciyaarta kooxda Shabaab taas ayaana keeni karta in xidigahan caajis ku dareemaan sidoo kale xidigahan ayaana garoonka soo faarujin kara haddii Puntland ku aado kooxaha Galmudug ama Somaliland wargeysyada sportska Norway ayaa saakay wax ka qoraya in laacibka Axmed Saki uu ku sii dhawaanayo in heshiis hal xilli ciyaareed oo amaah ah uu kula wareego xidigta xabeebta ku heesta Edel Barqad xidigan yaraantoodii bacaadka isku balansan jiray ayaana jeclaan lahaa in mar kale ku kulmaan garoon heer caalami ah walow haatan la fahamsan yahay in midkoodna 90 daqiiqo dhameysan karin maadaama daadu ka daba timid lama oga sida heshiiskaasi ay ugu sacabtumi doonto xidigta heerka caalami ee Nastaxa Indo oo hore dacwad ay u gudbisay FIFA isaga kansashay heshiis waqti dheer ah oo ay kula jirtay madaalaan haatan u taagan gool kulaadka wargeysada Djibouti ee ka faalooda ciyaaraha ayaa qoraya laacibka reer Djibouti Cawaale Aadan uu ku fashilmay tartankii koor 14 laacibkan halka mitir ayaana wali shaacin natiijada tartankaas oo taageerayaal fara badan qarash ku bixiyaan farin qoraaleed ay ku taageerayaan laacibkan si uu guuleysto wargeysada qaar ayaana qoraya in laacibkan uu kaalinta 15aad ka galay tartankaas halka kuwa kalena ay qorayaan in gabi ahaan baan la shaacin magaciisa natiijada kadib wiilkan sida wanaagsan ugu hadla Faransiiska ayaana gacantiisa ku dirsaday 200 oo farin qoraaleed si qudhiisa isku taageero guuldarada xidigan ayaana ku qasbaysa inuu ka gaabsado saxaafadda sportiska
maxkamad isboortis oo ku taala dalka Mareykanka ayaa baaraysa wax isdabamarin uu ku dhaqaaqay laacibka dalmaryare oo lacago loogu talagalay arooskiisa ku iibsaday gawaari nooca raaxada ah. Laacibad Soomaali Mareykan ah oo ilaa iyo 1991 ka ciyaaraysay horyaalka dalkaas ayaana xidigan ku aamintay adduun gaaraya $24,000 Mareykanka si loo taabageliyo kulanka finalaha arooskooda. Laakiin tamadheerahan heerka caalami ayaana ka weecday wadada guusha isagoona ku iibsaday muuqaalka gaariga aad arkaysaan. Gaarigan ayaa kan labaad ee uu qaalisan ee uu heesto xidig Soomaali Mareykan ah marka laga soo tago laacibka jalaato cunista badan ee Sholi kaasoo garoonka aalmiitada ku yimaada gaari lagu qiimeeyay $75,000 Mareykanka walow isna aan la ogeyn halka uu ka soo galay dakhligaas isaga ka qaalisan. markana xubinteeni isboortiska maanta oo kale maxaa dhacay maanta oo kale sanadii 2009 xidigta Farxiye Fiska ayaa ka jawaabtay mid kamid ah 300 oo fariin qoraaleed ah uu soo diray xidiga Bashiir Hanuuniye. jawaabtaas ayaana laacibkaas u horseeday inuu hantiyo xidigtan saameynta badan ku leh shacabka walow haatan iyadu dirayso fariimo ka badan kuwiisii shalay oo ilaa hadda uusan ka jawaabin. maanta oo kalena 2006 daafaca heerka caalami Maxamed Qanyara ayaa booska number 3 u faaruujiyay halista weeraryahanadii maxaakiinta isagoo daalay ciyaarta oo socota 3 mirir taasoo ka yaabisay kooxdii Mareykanku maalgelinayay ee la dagaalanka argagixisada. sidoo kale laacibkii lagu xisaabtamay waqtigaas Muuse Suudi ayaanan soo bandhigin qaab ciyaareedkii looga fadhiyay isagoo half time-ka ciyaarta dooni nooca tahriibka uga baxsaday garoonka. markana xubinteeni baafinta waxa la baafinayaa xidiga hore ee Wardhiigle Xuseen Caydiid markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in garoomada Soomaaliya iyo Itoobiya la isu daro si garoon weyn loo helo. haddaba cid alaalay cidii aragtay xidigaas aan lahayn farsamada aabihiis waxa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xarunta madaxtooyada ama waxaad baafintayada u bedeli kartaa luqadda Itoobiya isaga durbo nala soo xiriiri doonee. sidoo kale waxa la baafinayaa mudane Maxamed Maxamuud Guleed gacma dheere markii cid ugu wardambeysana waxay ahayd sanadii 2007 isagoo ku qanacsanaa darbooyinka xidigaha Itoobiyaanku ku ridayeen garoonkii uu ku soo ciyaar bilaabay ee Shirkole. haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi laf dhabarka u ahaa kooxdii Embagati waxa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xarunteena Cadaado ama waxaad idaacadda ka sheegi kartaa news been ah oo ku aadan in saacad ka hor ra'iisul wasaare loo magacaabay isaga warbaahinta u yeeran doonee. barnaamijkeeni kaftanka isboortiska waxaana si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo Lulu Shaalo iyo waliba Cabdiqaadir Boos. waxaadna ka daalacanaysaan barta Facebook ee Cabdiqaadir Boos halkuu dhiga barnaamijkeenuna waa lagu xantu lagu xasuustayaa ka horeysa waana baad barnaamijku isku duban oo idin la hagaashankiina noolama keeno gabagabada heesta barnaamijkuna waa inuu caashaq jeel yahay jir iyo codkii halaasiga ee dayaxda luushi waliba dooqii wada jirka ah xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye from Muqdisho iyo Sharlaawo Faaye from Canada daawasho wacan. عاشق